Wasiirka Maaliyadda Dowladda Soomaaliya, Biixi Imaan Cige oo haatan ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi Kenya, ayaa ka qayb galay shir maaliyadeed muhiim ah kaas oo looga hadlay saddex qodob oo waaweyn. Shirka ayaa waxa uu ahaa midkii 21aad ee iskaashiga wasiirada maaliyadda dalalka Geeska Afrika, wuxuuna ku soo aaday xilli magaalada Nairobi uu ka soconayo shirka sanadlaha ah ee Bangiga Horumarinta Afrika. Saddexda qodob ee diiradda lagu saaray shirkan ayaa kala ah dib u eegista iyo qiimeynta mashaariicda socda laga soo bilaabo 2019 oo ay maalgelinayaan dhammaan deeq-bixiyeyaasha iyada oo la muujinayo ka tarjumaysa daahfurnaanta madashan. Sidoo kale waxaa laga dooday nidaamka wada shaqeynta xuduudaha iyadoo warbixin laga dhageystay khuburo loo xilsaaray arrinkaas, maadaama hore loo ansixiyay nidaamka wada shaqeynta xuduudaha sanadkii tagay ee 2023. iyo ugu dambeyn madasha iskaashiga dalalka Geeska Afrika. Sanadkan waxaa ku soo biiray deeq-bixiyayaal cusub oo maalgelin doona hadafka horumarineed ee wadamada dhaca Bariga Afrika. Wasiir Biixi oo hadal kooban ka jeediyay shirka ayaa waxa uu diiradda saaray muhiimadda ay u leedahay dhaqaalaha Soomaaliya isku xirka wadamada gobolka, taas oo uu ku tilmaamay mid sare u qaadi doonta soo saarka gudaha iyo kobaca dhaqaalaha dalka. Sidoo kale waxa uu kulamo duceedyo kala duwan la yeeshay wasiirada dhiggiisa iyo madaxda kale ee ka soo qayb gashay shirka ka dhacay magaalada Nairobi. Dowladda Soomaaliya waxay haatan ka filaysaa natiijo dhaqaale oo aad u sareysa marka ay hirgalaan qorshayaasha madashan iskaashi ee dalalka Geeska Afrika oo hadda meel wanaagsan maraya.